wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta si rasmi ah u soo afjaray shaqaqo ka dhacday deegaanka Qaraaro taasoo dhex martay laba beelood oo wada degan deegaankaasi waxaana shaqaqada ka dhacday deegaankaasi Qaraaro ay sababtay dhimashada hal qof oo shacab iyo dhaawaca hal askari oo ka tirsan ciidanka qaranka oo ku sugan deegaankaasi Qaraaro kulan si wada jira wasiirka arrimaha gudaha isugu keenay labadaas beelood oo dirirtu dhex martay ayaa laga dhawaaqay guddi 15 xubnood oo ka shaqeyn doona nabadgelyada deegaankaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo isaguna ka hadlay kulankaasi lagu soo afjarayo shaqaqada ka dhacday deegaanka Qaraaro ayaa ugu baaqay guud ahaanba labada beelood ee dhex martay dirirta colaadeed inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaasna ay ka shaqeeyaan danaha deegaankaasi waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wax badan dhacay jirin meedkiina imka la isla gartay in la aaso reerihiina hawshii wixii ka dambeeyay sidii loogu kala samri lahaa loo ballamay barito sidaan aan jeclahay insha Allah inay khaatimo wanaagsan ku soo khaatimeysato arintaasu way dadkan waa dad sida la sheegay isku deegaan oo wada degan meeshta weeye dad oo kaleysana maaha marka ilaahay waxaan barayaa in ilaahay nabadgelyada uu adkeeyo muxuu haayay nabadoodana ay adkeystaan aad iyo aad odayaashii labada dhinac ka soo qayb galay sida ay u fududeeyeen barasaabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur oo isaguna halkaasi ka hadlaya labada dhinacba u soo jeediyay inay ilaaliyaan heshiiskaasi ay galeen isla markaasna ay ku dhaqmaan wuxuu barasaabku sheegay in waqtigan aan loo baahnayn in nabadgelyo laga abuuro deegaankaasi isla markaasna loo baahan yahay sidii gacmaha la isku qabsan lahaa wasiirkuna run ahaantii sidoo isku soo xilqaamay markaan arinta gaarsiinay inuu markiiba habeen barkii inuu runtii ka soo baxay waana markii labaad run ahaantii waqti xun u Hargeysa ka soo baxo habeenkii gidina dariiqa ku soo jiray deedna aroornimadii uu soo gaaray anagoo arintii gacanta ku hayna dejinayna runtii nabadgelyadana si fiican uga shaqeynay ma haddaana iska leeyahay ciidamada Booliiska kastaba aatee shaqaqada ka dhacday deegaanka Qaraaro ayaa iyadu ahayd mid sababtay dhimashada hal qof oo shacab iyo waliba dhaawac hal askari oo ka tirsan ciidanka qaranka waa Maxamed